أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا جوقلا ميديا ألا جوقلا ميديا waxaa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska xanta suuqa kala iibsiga kulamadii laga dheelay shanta horyaal ee qaaradda Yurub ugu waaweyn UEFA Champions League, Europa League iyo Conference League. Ala maanta waxaa ku falanqeyn doonaa kulamadii laga ciyaaray xalay ilaa iyo isbuucan wixii xaq oo ugu dambeeyay xanta suuqa kala iibsiga ahaa. fadlan waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan iyo joogteynta aad joogteynayso inaad daawatid channelkan Juqla Media. Waxaan gaarnay ilaa 300 oo qof oo asxaab ah. Waxaan ku sii soconaa wadadii aan ku tagi lahayn kun subscribe. Ka mid noqo wadada aan ku tagi lahayn kun subscribe oo ugu horeyso xuduudda ugu horeysan waaye. aad aniga mahadcelinaa. Waxaa guul weyn gaartay naadiga Manchester City oo ka dheeshay horyaalka Premier League kadib ciyaar ku bilaabatay dardar iyo xoog iyo banooni isku dheelitiran hab u badnaatay kubad heysashada dhanka Manchester City, laakiin ma dhicin in ciyaarta ay mar walba xakameyso. City ayaa gool ku hormartay kadibna waa laga daba keenay. Ciyaarta waxaa laga dhigay barbardhac. qof walba taageero naadiga Liverpool iyo naadiyaal kale oo mucaarad ahaa waxay gambarkooda soo dhigteen dhalad agteeda, laakiin waxaa mar kale fadhiga ka kiciyay xidiga De Bruyne oo marnaba aan la istaajin karin xalay, maxaa yeelay wuxuu ahaa xidigii garoonka xidigii dhaliyay goolasha inta badan. Kevin De Bruyne ayaa noqday xidiga kaliya ee isbuucan dhaliyay hat-trick maadaama uu xalay ku tuurtay 4 gool kadib markii naadigiisa ay ku adkaatay 5 gool iyo gool ay Wolves ugu adkaatay. Naadiga Manchester City ayaa guul weyn ka gaartay dhigeeda Wolves maadaama uu horyaalka carcar yahay dhibcahana bareejo ka ahaayeen naadiga Liverpool ee la tartameyso horyaalka Premier League. Laakiin City iyo xirteeda iyo macalinkeeda Pep Guardiola ayaa u soo dhigtay in ay qabtaan naadi walba ka hor imaato ee horyaalka Premier League maadaama cara ay ka soo qaadeen dhankan iyo UEFA Champions League. sidaas awgeeda City oo mar walba ku bilaabatay dardar iyo xoog iyo banooni isku dheelitiran ayaa mar kale qabatay naadiga Wolves oo la dhahayay Wolves ayaa hakid doonto ciyaarta Manchester City, laakiin ma dhicin. Manchester City ayaa 5 gool iyo gool ugu adkaatay. maxaa laga filayaa kulamada soo socda? Naadiga Liverpool ayaa dib u milicsatay booskeedii labaad kadib markii goolal iyo dhibco la iskugu daray goolna ay ka qaadatay naadiga Wolves. Naadiga Manchester City kulanka ka hor Liverpool ayaa booska koowaad ku jirtay maadaama ay dhibco ka sareysay, laakiin hadda ma dhicin. waxaa hadda mar kale loo milicsaday 3 dhibcood oo nadiif ah. goolashan waa la sii dheereystay. Naadiga Manchester City ayaa ugu dhow inay ku guuleysato horyaalka Premier League markeedii 7aad ahna markii afaraad 5 sano ee la soo dhaafay. Sidoo kale waxaa horyaalka Premier League ka dheelay naadiga Chelsea ee ku ciyaarto Stamford Bridge 3 gool iyo eber ay waxay ugu adkaatay naadiga Leeds United. Leeds United ayaa dardar xoog leh ku bilaabatay ciyaarta, laakiin waxaa ciyaarta mar dhinac kale u riday naadiga Chelsea kadib markii 3-0 ku adkaatay. halka horyaalka Premier League ay ka ciyaartay sidoo kale Leicester City oo u bixisay naadiga Norwich. Leicester City ayaana 3-0 ugu adkaatay Norwich, halka Watford iyo Everton ay barbardhac ku kala baxeen. ciyaarta markay ay bilaabatay iyo markay dhamaataba natiijadu waa isku mid, sidaasna waxay noqotay in ever in ciyaarta ay ku soo dhamaato. EPL-ka ayaa sidaas lagu ciyaaray waxaana la dheelay ilaa 4 kulan. sidoo kale waxaa la dheelay horyaalka La Liga ee laga ciyaaro Spain. Alaves ayaa 2 gool iyo gool ugu adkaatay Espanyol, halka Osasuna ay barbardhac la gashay Getafe goolal 1-1 ah. Sevilla oo garoonkeeda ku qaabishay Mallorca ayaa ever ku kala baxeen, halka Elche oo la soo booqday Atletico Madrid ay soo booqatay Atletico Madrid ayaa 2-0 ku adkaatay.
sidoo kale Ajax ayaa ku guuleysatay horyaalkeeda kubadda cagta kula xifaaltanto naadiyaasha kala Feyenoord iyo PSV Eindhoven. Ajax ayaana qaaday Erik ten Hag ayaana qaaday koobkii saddexaad horyaalka naadiga Ajax. sidaasna waa koobka oo kaliya hal kulan ayaa u dhiman horyaalka sidaasna waa uu kasoo tagi doonaa. Hambalyo Ajax iyo macalinkeeda Erik ten Hag. sidoo kale waxaan hambalyo leeyahay naadiga Inter Milan oo ku guuleysatay koob Itaaliya kadib markay 4-2 guuldaro biday dhigeeda Juventus oo carcar ku bilaabatay laakiin goosh loogu hormaray ayaa comeback sameysay kadib markii ay barbareysay u labeysay naadiga Inter 2-2 ayay sidaas ku noqotay. laakiin ciyaarta ma aysan sidaas ku dhamaanin, waxaa dib u soo kacay xirtii Inter Milan waxayna keeneen goolka lagu leeyahay kadibna waxay u sarifeen goolkii loogu hormaray. goolkan waa ugu dareen 4-2 waxaa ku adkaatay naadiga Inter Milan. Inter ayaa ku guuleysatay koob Itaaliya xil ciyaareedkan maadaama ay dhib iyo dheefba soo martay, waxayna horyaalka tartan kula jirtaa naadiga AC Milan. sidoo kale horyaalkaas ayaa koob Itaaliya ayaa sidaasna kusoo gabagaboobay. Inter Milan ayaana sidaas ku qaaday kaliya waxay hadda kadib isha ku hayi doontaa horyaalka Serie A oo ka dhexeeya iyada iyo AC Milan. sidoo kale wararka waxaa ugu waaweyn haddii aan kasoo baxno kulamada suuqa kala iibsiga waxaa ka mid wakiilka ciyaaryahan Gabriel Jesus ayaa xaqiijiyay in wadahadal oo la furay naadiga Arsenal iyo naadiyaal kale. mashruuca Arsenal waa mid halis waana suurtagal inaan ku biirno naadiga Arsenal maadaama ay soo bandhigayso mashruucyo la qaadan karo. waxaana kula jirnaa weli aan joogteyn doonaa xoojinta wadahadalkaas. wixii kasoo baxo waana wada arki doonaa. sidoo kale waxaa suuqa kala iibsiga ka mid Frank de Jong ayaa 95% ciyaaryahan Manchester United, walow la sheegayo in uu Manchester City ugu biiri doono heshiis 35 milyan laakiin ku dhawaaqista Haaland ayaa wax walba dhinac kale u rogi karo maadaama ay qarashaad iyo mushaaraad badan ku bixinayaan Erling Braut Haaland. Frank de Jong ayaa la sheegayaa imaanshaha Erik ten Hag inay suurtagal weyn u tahay naadiga Manchester United inay soo qaadato ayna u dhaqaaqdo saxiixa Frank de Jong iyo naadiga Barcelona oo xaqiijisay in xiddigan suuqa ay dhigi doonto falcelin dhanka dhaqaalaha awgiis. Frank de Jong ayaa suuqa la dhigi doonaa maadaama xaraash iyo xoolo jaban ay noqotay naadiga Barcelona. suuqan lacag ay ku rabto ciyaartooyna inay fasaxda ay tahay si kaash u hesho suuq ay u geliso kadib. waa kan dabaaldega Erling Braut Haaland kusoo dhawaa Manchester City. waxaa sidaas dhahay Kevin De Bruyne oo celebrationkii geliyay oo Erling Braut Haaland lahaa kadib markii yoogada oo geliyay gool oo dhaliyay kulankii ka tirsanaa xalay ee u baxayeen naadiga Wolves. sidoo kale Rodriguez oo la xaqiijiyay inuu ku biiray Real Madrid. Rodriguez oo ka tirsan naadiga Chelsea ayaa lagu dhawaaqay ama xaqiijiyay ama saxiixay heshiis 4 sano oo ku sii joogi doono Santiago Bernabeu. Real ayaana xaqiijisay sidaas. United waxay ka maraysaa aan ku madax degsano bandhigga qaab ciyaareedka fiican ee 18 jirada. xalay ayaa dhacday ciyaar finaal ahayd ee u dhaxeysay naadiga Nottingham Forest iyo Manchester United 18 jiradeeda. garoonka Old Trafford ayaa soo buux dhaafiyay kadib 67 ruux ay soo wada xaadireen garoonka Old Trafford kadib markii naadigaas ay Manchester United 18 jiradeeda ay ciyaareysay finaal. Manchester United ciyaartooydeeda qaybteeda 18 jirada ayaana ku guuleystay koobkii u dhaxeeyay labada naadi. United ayaan laga dareemayaa in ay caraweyn ka qabto naadiga koowaad ee Manchester United, walow
naadiyaasha yaryarka ah ee 18 jirada ee rajo buuxda ka qabeen kadib xalay sidii u soo buuxdhaafiyeen markii la arko. Sidaasna United ciyaartoydeeda ayaa ugu guuleysatay koobkii UEFA Youth League FA Cup ahaa. Kulankaas waxaa laga soo calaamiyay xidig weerarka ugu ciyaaro gargar ayaa u dabaaldegii caanka ahaa ee Cristiano Ronaldo. Tabiyaha ciyaarta oo tabinaya ciyaarta ayaa yiri waxaan daawanaynaa jiilka 32 waxaana daawanay jiilkii 92 Ryan Giggs wuxuu leeyahay uu ku kaftamay Giggs waxaad daawanaysaa jiilkaagii 32 ee ku ciyaaray naadigii nambarkaagii aad ku ciyaaraysay jiilkii 92. Ryan Giggs ayaana sidaas lagu hadalhayay. Sidoo kale wararka soo dhacaya ayaa sheegaya in Fabinho uu seegi doono kulanka finaalka ee FA Cup-ka ee la dheeli doonaan maalinta Sabtida naadiga Liverpool ay la ciyaari doonto naadiga Chelsea. Fabinho oo dhaawac ka soo gaaray kulankii habeen hore ee la dheeleen naadiga Aston Villa ayaa seegi doona kulankaas finaalka ah ee FA Cup-ka ee la ciyaari doonaan dhigooda Chelsea. Kevin De Bruyne ayaa mar kale hadlay ayaa yiri Kevin ayaa mar kale dhahay 3 dhibcood iyo 4 gool iyo hal banooni cusub oo aan ugu talagalay caruurteeda oo macna ka ah in 4 gool uu ka dhaliyay xalay Wolves. Goolashaas ayuuna u hibeeyay ilmihiisa iyo xaaskii uu ka dhalay. Wuxuu leeyahay waxaan helnay 3 dhibcood oo muhiim ah iyo 4 gool iyo hal kubad oo cusub aan ugu talagalay caruurteeda. Haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhamaadka waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, like dheh si uu gaaro asxaab badan. Aad iyo aad kaaga mahadcelinaa wax la iska xaqiraayo badan. Fadlan subscribe dheh, share dheh, like saar si uu gaaro asxaab badan. Aad iyo aad kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan.